السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalayaal waxaan rabaa maanta in la wadaago waxaa jirtay maalmaha kan buuq kaga dhashay hadal uu yidhi nin dhalinyaro oo xildhibaana hadal uu maaragtay su-aalo la weydiinayay uu kaga jawaabay ayaa buuq badan ka dhaliyay maaragtay Soomaaliya oo dhan guud ahaan. waana xildhibaan xusub waa ninkan backgroundka ka muuqda, ninkaas oo aad loogu kacay oo xitaa dadka qaarkii ay ku tilmaameen inuu yahay shabaab, qaar ay ku tilmaameen in la xidho, qaarba si u dhigeen hadalkiisa. ninkaas ayaan jeclay. ninkana hadalka uu yidhi hadal macquula, dalka iyo dadkaba u danaynaya ayuu ahaa. anigu sidaan qabo, aan filayona in badan ay qabto. marka ninka bal hadalkiisii baan xoogaa ka odhanaya. ninkan wuxuu waqti la weydiiyey maaragtay nimankan hadda ka dagaalamaya reer miyiga ee ka dagaalamaya gobolka Hiiraan ay arrinta ku saabsaneyd macawisleyda la baxay baa la weydiiyey. marka wuxuu yidhi nimanka wallaahi waxaan ka qabaa yacni shaki badan baan ka qabaa, arrintooda yacni uma bogin. sababta maxay tahay nimankan hadday dagaalamaan oo dhibta ay hadhow keenayaan ilaa iska tegi maayaan, iska kala dareeri maayaan, dhibta ay hadhow keenayaan yaa ka mas-uula. taasuna wax hore u dhacay weeye. waa runtii wax macquula wey, horey u dhacday. waddanka waqti xasaasiya baa lagu jira, yaa ka dambeeya nimanka kale ma la ogyahay horta. waxaa ragga u jawaabay waxaa ka mid a oday Jeyti oo nin runtii waa nin odaya weeye. gobolka Hiiraan waa gudoomiyaha gobolka Hiiraan baan u malaynaya. waa nin odaya, waa nin la yaqaano macruuf. ninkaasu si xamaasad leh oo kulbu ninka shabaab ugu sheegay. oday Jeyti waxaan leeyahay waad khaldantay. ninka inaad horta bal wuxuu doonayo iyo waxa uu ka hadlay inaad si fiican u dheegtid baa fiicnayd. waayo arrintan waqti xasaasiya bay bilaabantay. adigu ma tahay ninka gacanta ku haya arrinta tan oo hadhow ka mas-uula inay maaragtay aniga wax kala dambe ka soo noqonay. hadaad saahutid oo adigu aad gacanta ku haysid, annaga waxaa noo muuqata waqti xasaasiya inay cid kale ka dambeyn karto arrintan tan. waayo dadkanu dee awalba waa joogeen, isma abaabuli jirin. shabaabna 20 sano waddanka waa ka dagaalamaysa, isma abaabuli jirin. waxaa keenay maanta inay isbaabulaan oo ay arrintan sameeyaan. damaanad ma ka tahay adigoo aan ninkan ba ku mashquulin. ninkan xildhibaanka hadal wanaagsan buu yidhi oo dalka iyo dadkaba wax taraye, aad ku mashquulin adigu mas-uul ma ka tahay wax weeye. arrintan horey u dhacday. waxa uu sheegaya xildhibaanku waa runtii dalka hubkan aafeeyey dalkeena wuxuu ka bilaabmay niyad sami dagaalkii 77 markii maaragtay ciidamadeenu ay soo jabeen ayaa waxaa la hubeeyey oo dowladdii ay hubaysay dadkii xuduudaha ku teedsanaa. nin laga soo bilaabo gedo ilaa iyo Lawyacado ayaa la hubeeyey dadka xuduudka ku teedsan. hubkaasu waddankii buu dib ugu soo galay. mar kale ay jabhaduhu bilaabmeen, jabhaduhu hub badan ba ma keenin. jabhaduhu waxay dadkii qabaa'ilkii oo ishubaysan baa dee jabhadihii iska raacay, soo ma garan. marka saasay ku bilaabantay. waxaa ka dambeeyay taal cusub ee hadda taalla ahlu sunna. ahlu sunna saas oo kale loogu jidbooday oo shabaab la dagaalameen oo dadku loola jidbooday hubkii la siiyey. xasan sheekh hubkii buu siiyey, dowladda ayuu siiyey nimanka. waayo dad bay ku lahaayeen. wasiirka arrimaha gudaha inanka uu dhalay yaxnaya manaan buu ahaa, haddana waa ergeyadu ka mid yahay xasan sheekh. hubkii baa la siiyey dowladda. shabaab waa taa maanta ahlu sunna dowladdii baa ka dhaqaaqi weyey meeshay taagan tahay. marka ninkan wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha caynkaasa weeye. hadda hadalkiisa ila dhegeysta. argagixisada iyo qaababkeeda iyo dhibaatooyinkeeda iyo weliba sida loola tacaalo waayadii dambe waxaa soo batay, waad ogtihiin in dalal shisheeye ay Soomaaliya yimaadaan oo yidhaahdaan sida argagixisada loola dagaalamo nabara. waxaa la rabaa dhan haddaan ka liidano dhananka kaleete oo aan awoodda ka leenahay inaan iyaguna aan iftiimino. 5 sano ka hor, 10 sano ka hor, 7 sano ka hor, 8 sano ka hor intaanoo qof intay isku timaado kuma dhiiranaynin inay argagixiso ka hadlaan
ama qofka hadlaysa intay hor fadhiistaan ay dhegaystaan waa la baqaaya soo ma sharciga la dagaalanka argagixisada wuxuu u baahan yahay xildhibaan soo dhacdooya uma baahnee khubaradii amniga gacanta ku haysay ee ka shaqaynaysay oo janno leh oo korneelo leh oo heerarka kala duwan ee darajooyinka ciidanka wata hawshaasna ku soo shaqeeyey iyo wasaaradihii amniga iyo hay-adihii amniga ayay u baahan tahay inay ka soo shaqeeyaan hawshaas soo kariyaan wixiioo karsan baarlamaanka loo keeno marka khibraddaas oo joogtada ah oo hay-adaha ammaanku leeyihiin darteed ayaan uga sugaynaa gacantooda laakiin hadday keeni waayaan maxaa imaanaya annaga laftirkeena sanadkan baarlamaanka waxaa ku soo biiray saraakiil amni oo janano iyo korneelo heerarka kala duwan oo ciidamada leh oo aad u tiro badan oo aad taqaanaan dhammaantoodna ama badankoodba waxay ku jiraan guddiga amniga qaranka guddiga amniga ee baarlamaanka haddii xukuumaddu keeni weyso waa bilaabaynaa insha allah annagaa samaynayna aadaan ugu mahadsanyaa kumantigiisa su-aasha kaleete oo macawisley dhibaatadeeda qofkaan hadda dareemin barriyow dareema yacni wax kasta oo fawdo ku bilowda u a c maxay ku bilaabatay sharci may ku bilaabatay fawday ku bilaabatay ilaa haddana yaana soo gaarsiiyey heerka aan marayno oo maalinba cajal cusub oo noo bilaabmaayo fawdadaasaa noo bilaabmaysa aa keenaysa carabtaa waxay dhahaan waa sharixi doonaa intaan carabiga ku hadlin waxay yidhaahdaan laa yasluxu nnaasu fii fawda waa shicir laa suraata lahum walaa suraata idaa juhaaluhum saadu dadka kuma habboona ama kuma fiicna fawdo aan hoggaan lahayn hoggaanna ma jiro haddii fawdadaas haddana idoo fawdo ahayd ay haddana dadkii ugu jaahilsanaa ay hoggaamiyaan macawisley waa ognahay geelley waay waa dad miyii ku nool caadifad qabaliya ay kicis dhibaa haysta waa ognahay laakiin dowladdaa la rabaa inay dhibkaas iiga haysta ay ka hor tagto macawisley walwal badanaan ka qabaa aniga hadda waxaa laga yaabaa dadka qaar markay macawisley maqlaan inay u riyaaqaan ay dhahaan dad oo deegaankooda xoraysanayo waaye hadda way fiican yihiin howl fiican ay haayaan laakiin dad hubaysan waaye markay dagaalkaas dhammeeyaan way bahaloobeen laftirkooda dhiigay galeen oo nidaam aan lahayn qorayay barteen inay qaataan inuu awooddiisa u exercise kareeyo isagoon u tababarnayn oo sharci uu maraayo iyo broses aysan jirin qofku owr dabar la-aan uu noqonayaa berrina dowladdii u riyaaqaysay iyo shacabkii u riyaaqaya laftirkooda oo isbaaruu dhiganayaa xabadna wuu kusoo ridaa waxaan qabaa marka aniga wax walba oo aan nidaam iyo sharci ku dhisnayn oo argagixiso lagula dagaali maago booskii argagixisada hadday ka baxdo iigaa galay waana soo aragnaa umalaynaa tijaabooyinkaas ururo is-abaabulay oo markii dambena dowladdii ay ka dhaqaaqi weyso xabad ku riday ayaa jiro marka si gooban waxaan u leeyahay sharcigaas waa marinaynaa aniga guddiga difaacan ka mid ahay takhasuskaygana cilmiga bulshada waaye maxaa igeeyey guddiga difaaca in deegaankayga la haysto muhiimadda ugu horreyso maanta ay tahay in oo argagixisadaas lala dagaalamo qof walba markuu argagixiso maqlo dhimashaa kusoo dhacaysa waqti aan leenahay likulli ummatin ajal fa idaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun saacaddaada mana ka hormaraysid mana ka dib dhacaysid iidaas dhexdeeda aa ku dhimanaysaa marka yaana mowt laguga cabsi gelinin qof kastaa waa dhimane laakiin waqtigiisa waay waad aragtaan waxyaabahaasuu ka hadlaya in maaragtay si iska aan caqli ahayn loogu jawaabo aniga waxaa weeyaan ninkan waa ka xumay aad iyo aad ayaan uga xumay ninkan hadal wanaagsan buu yidhi in lala garto weeye ninkii dee isagu damaanad qaadayaan sidaas maaragtay jeyti oo kale haddaad damaanad qaadaysa dee adeer u sheeg si caqliga ugu sheeg adigoo aan ninkan shabaab iyo waxba toona ku tilmaamin ninkan waxyaaba badan buu ka hadlay waxaa kaloo ka hadlay mid nacas oo siyaasi oo iska biro abuura fidna abuura waa kii wuxuu joogaa mahashi muxuu ahaa waxaa la yidhahdaa maxay ahayd wuxuu joogaa finland halkaasuu ka soo dagaalamayay sanadihiina dhaafay intii doorashada lagu jiray ee dhibtu taagneed maalmihii geela iyo la qalayay waa kuwii dhiirinayay buu ahaa kiibaa maanta isnaa leh ninka hala xidho labada in caalin weeye waa in caalin waa siyaasi faashila oo iska aan wax caqliga wax caqliga kuma hadlo xiqid unbaa waxiisa ka muuqda iyo xaasidnimo ayaa ka muuqda waxyaabaha uu ka hadlaya oo dhan
in caalim wuxuu ka xun yahay oo ninkan uu ku durayaa waxa weeyaan waa inuu yidhi hadal wanaagsan oo dowladdii hore maaragtay uu ku ammaanteeda ku muujiyey marka isaguna baldhigaysa isagana deegaanada iska abaabulay ama hirshabeelle ama galmudug ama muxuu ahaa dhinacyadan koonfur galbeed ama puntland meelo badan bulshadu iska abaabuleen dowladdu inay hadda dadkii tayayso oo inay rasaastii ka tayayso inay qoryihii ka bedasho inay mataqaanaa waa arrin caalami ah hadda dagaalka etoobiya waa aragtay qoomiyadaha etoobiya ayaa laga hor keenay ciidanka tigreega oo mataqaana waxaa la hubeeyey amxaaradii waxaa la hubeeyey oromadii waxaa la hubeeyey soomaalidii marka waxa weeye dadka deegaanka beertooda la dhacayo ceelkooda la burburinayo mataqaana dhibaato lagu hayo haddaan waxyaalaha la taageerin dadku waxyaalo fudud bay ka hadlayaan qoryo la qaybiyey rasaas la qaybiyey waxaa ka muhiimsan dadkii oo la xasuuqo dadkii oo la baabasho marka dadku hadday moral la yimaadeen dalkooda iyagaa difaacaya iyagaa ciidankii ah iyagaa tayadii ah marka ka falanqayn ahaan waxaan aaminsannahay si caalami ah markii horeba al-shabaabku waxay ka yimaadeen dadka deegaankii bulshada soomaalida ka yimaadeen marka hadday bulshadii qayb ka mid ah ay noqotay shufto al-shabaabka uu qadiyadii uu bedelay inuu dadkii deegaanka xasuuqo dowladdu way ku saxsan tahay inay wax walbay la gaari karto ama dawo ha noqoto ama cisbitaal ha u furto dadka dhaawaca ama rasaas ha siiso ama shidaal ha siiso dowladdu way ku saxsan tahay si dadka deegaankooda aanay uga soo qixin oo aanay uga soo cararin kooxaha argixisada ah hadda marxaladan taagan marxalad lagu difaaci karo ama lagu taageeri karo ma aha yaan dadka beelaha soomaaliyeed la hubeyn beelaha soomaaliya waa la hubeynayaa aqoon baa lagu hubeynayaa sharci baa lagu hubeynayaa dhaqan baa lagu hubeynayaa moral baa lagu hubeynayaa sida ay al-shabaabka gabaadka ka dhigtay ee degmooyinkooda ku nool oo dadkoodii ku nool oo gabdhahoodii kufsanaya oo dadkoodii ceelashoodii aasaya oo isgaarsiinta ka jaraya in laga hor yimaado marka dagaalkan waa fursad maantana soo martay soomaaliya dagaal kale kama harin kan waa dagaalkii ugu dambeeyey maanta annaka wax kaloo nahaya ma jiro dagaalkii sokay meesha ugu dambeysay weeye xildhibaan cabdisaaq xusul iyo xildhibaanada kale aad weydiisay muxuu ahaa fikirka kasoo horjeeda in beelaha la hubeeyo oo dhahaya u s c ayaa hadda ka hor barbar loo hubeeyey kadibna u s c iyadaa hubkii isku dishay ama mataqaanaa maxkamadaan samaysanay maxkamad iyagaa isdilay wuxuu ka hadlayey deegaanka ee beelaha u s c du degaan ayuu si toos uga hadlayey markaas soomaalidhan baa isdishay soomaalidhan baa ishubaysay dagaalka soomaali meel uu gaaray ilaa meel aanu soomaali dagaalku gaari ma jiro haddana dagaalka waa laga soo kabanayaa muqdisho meel fiican bay u socotaa hirshabelle meel fiican bay u socotaa jawhar dhulka deegaanka soomaali meel fiican buu socdaa hadda caqabadana hortaagani ama ninka xildhibaanka ama ninka wasiirkii al-shabaab dhahayaan lala dagaalamin yaan beela la hubeyn oo maxaa harayba haddii dadkii xidada loo siibayo oo dadkii maantida ahaa ceelasha laga aasayo oo dadkii xoolihii laga qaatay oo gabdhihii laga guursaday oo dadkii la iska horkeenayo nin mataqaanaa koonfur galbeed ka yimid la leeyahay kaalay aadan yabaal mataqaanaa xoog ku hayso kaale ceel buur qabso kaale kan qabso oo dadkii la iska horkeeyo beelo la isku dirayo marka waxa weeye ka siyaasiyiin ahaan siba golaha sharci dejinta iyo wasiirada iyo culummada qof kasta oo difaaca dagaalka al-shabaab oo taageera waxa waa cadow qaran waa in mataqaanaa xilka laga qaadaa waa in maxkamad la taaga maxaa dhacay wuxuu raalli ka yahay xasuuqa shacabka soomaali ku socda soo ma aragtaan isagu qiimo male hadalkiisu wax qiimo uu leeyahay ma jirto arrimahan uu ka sheekeynaya inuu leeyahay etoobiya waa u qaybisay etoobiya saxiix waa u qaybisay dadka laakiin etoobiya dowlad xoog leh gacantay ku haysay haddana iyadoo ay sidaa gacanta uga hayso wixii ka baxsaday maanta maxaa ka dhacay city gobolka soomaalida ee city maxaa ka dhacay xafartii hubka la siiyey hubkii bay kula soo jeesteen soomaalida marka waxa weeyaan hubka kan la siinayo beelaha haddeer xasan sheekh waxa uu marmarsiinyo uu helay dagaalkan uu ka faa'iiday kuwan xataa la siin maayo laakiin dad gaaraa la siinaya kuwii shabeellaha hoose ka dagaalamayay iyo kuwa galmudug ka dagaalamayay kuwaasaa uu doonaya inuu hubka dowladda uu siiyo marka ninkana wuxuu ka degayaa arrimaha caynkaasi weeye waa in lala gartaa dad shacaba oo la siiyo hub waxa weeye hubka dowladda la siiyo darito shacabka kale ku laynayaan dowladdii kula soo jeesanayaan dib oo dhan baa ka dhacaysa marka waxa weeyaan waa in si caqliya looga hadlaa loona dadkana waxaa in la taageeraa ninka xildhibaanka waa in taageero loo muujiyaa oo maaragtay laga reebaa dadka kan dee waa lagu soo duulay runtii aad baa lagu soo duulay in la taageero weeye hadal ceeloma odhan hadal saxa oo
aragtay dalka iyo dadka waddanka khayr baan idin rajeeyay intaasun baan idinla wadaagayay subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ila allah astaghfiruka wa atuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu